waxaynu odhan karnaa musطalaxa kani waagaa hore xoog baa loo isticmaali jiray markay caalam ilfikri joogto caalam الsaxaafa wuxuu ku soo biiray bay idhahdaan ilaa 17 meelahaasi gaar ahaan markii alwifaaq الduwali alأwal uu dhacay oo ah markay isku soo dhowaadeen maraykanka iyo raashinka bakin chinaha iyo maraykanka xarbu fitnaam uu dhammaaday waktigaana dib buu usoo noqday ereyga kani caalam الصaxaafa oo la leeyahay new world oo dhar baa soo baxaya xataa waxaa la yidhaahdaa madaxweynihii ugu dambeeyey raashinka ee dhacay gorbajof borostarikihiisa laftiisu isagu wuxuu ku dhawaaqayay in nidaam caalami jadiid waxaasi la sameeyo laakiin waayadii waxaa la qorayo o dhan america aad bay uga taxafudi jirta ama isaga ilaalin jireen siyaasiyiintooda iyo qoraagooda inay isticmaalaan ereyga new world oo dhan waayo waxay u arkayeen haymanadooda iyo qaabka fikradeeda ay doonayaan wax ka soo yaro horjeeda inuu iyo isbeddelka in la raadinaya sida daraaddeed may jeclayn baa la yidhahdaa iyaga inay masaladaasi faafto laakiin maalintii ay ku dhawaaqeen un inay ciraaq ciidamada duldhigaan ayuunbuu habeen dhawaaqay bush isagoo leh waxaa dunida loogu baaqayaa new world order ama nidaam cusub oo jadiida nidaamkaasi oo sidiisaba waxay idhahdaan andimada caalamku soo maray bay idhahdaan waxay dunidu taqaanaa bay idhahdaan dhowr nidaam oo kala nooca waxay soo martay nidaam tacadud alqutbiya ama aqtaab tiro badan ay ka taliso waxay kaloo soo mareen nidaam 3 kooxood ama 3 dawlo ay ka taliso waxay soo martay dunidu nidaam 2 dawlo oo quri ay saytarada weyn leeyihiin ay ka taliyaan kanina waxaa kii u dambeeyey ee hal dawlo isku dayaysa inay ka taliso inta badan nidaamada caynkani waxay dhacaan haza caalamiya bay yidhahdaan gilgilan weyni dunida marka dhaco ayaa tawrkan cusub ama changekan cusub ama isbeddelkan cusub uu dunida ku dhaca oo nidaamada tani soo baxaan waxaan leenahay iclaamku eraygan wuu inaga tiro badiyey ilaa xad majalladan time la yidhaahdee maraykanka ah ay tilmaamtay in layska daayay jumlada in sideeda loo qoro new world oo dhan in la qoro xataa alfabetku uu noqday bay yidhahdeen alfabet u dhigmi karaa sida USA oo kale bay yidhahdeen loo isticmaali karaa la odhanaya NWO iyadoo lasoo gaabinayo axruftii aan u baahnayn yani saa dadkii u fahmay qofka marka imka la yidhahdo wax akhriyay USA uma baahna inuu yidhaahdo alfabetskani maxay ka joogaan markiiba uu iska fahmaya cidda looga jeedo ama UNO ama waxaa marka la sheego sidoo kale buu noqday bay leeyihin musطalaxa kani waxaynu leenahay muxuu yahay nidaamkan caalamiga ee jadiidka ah ee dunida ku soo biiray